muuqaalkani waa caruur ay masiiba ku habsatay aabahood waxaa la dilay 2013 hooyadoodna iyada ayaa wax dishay 2015 waxaana hadda gacanta ku haysa eedadood la dhalatay aabahood waa caruur ay cibaaqaadasho u noqon karto inta wax maqasha waana caruur maanta u baahan in loo gurmado waxa ugu weyn gabadh 8 jira waxaana ugu yar wiil naaska wali jaqaya oo aan laga gooyn waxa maanta galinkii hore aan gaarsiiyay raashin isugu jira bur bariis sonkor iyo saliid uu isoo wakiishay inaan gaarsiiyo mid ka mid ah walaalaha islaamka ee qeerdoonayaasha ah ee ku nool dalka dibadiisa oo magaciisa igu koobay Ismaaciil waxaana raashinkaasi guddoonsiiyay caruurta shanta ah eedadood oo gacanta ku haysa caruurta raashinkan aad arkaysaan waa raashin walaalaha islaamka ay u soo dhiibeen qoyskan dhibaataysan caruurtan yaryarka aad arkaysaan ee shanta ah oo aabahood la dilay hooyadoodna amuurta ay ku dhacday ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu u fududeeyo hooyadood una soo daayo waxaan raashinkan ugu dhiibay oo bur iyo bariis iyo sokor iyo saliid ah oo aan waxaan badnayn oo maalmo ah si ay uga gudbaan eedadood oo la dhalatay aabahood oo caruurtan haysa oo iyana iska qoys culus oo gurigooda ay ku nool yihiin caruur kale guddoon raashinkan insha Allah kuwa kale inaan keeno rajaynayo insha Allah xilliga aan booqday waxa ay ahayd qiyaastii 12 duhurnimo saacada bariga Afrika dhankeena mana jirin wax ay cunaan xilligaasi waayo maba haystaan wax ay cunaan waxaan u dhaqaaqay mid ka mid ah maqaayadaha ku yaala magaalada Jowhar waxaan uga soo iibiyay cunno bisil oo aan ku siiyay gurigooda si aan ugu muujiyo inay helayaan dad ka damqanaya dhibkooda diyaarna u ah inay wax u qabtaan aabaha caruurtani dhalay waxa uu mootan yahay ku dhawaad 3 sano waxaana dishay gacan ka xaq daran xilli uu ka soo baxay salaad jimce sida ay ii sheegtay caruurtan ayadood oo ah marxuumka dhintay hooyadiis mana la siin nagtoodii caruurtan shanta ah ee aabahood la dilay waxaan ku iri aabahood maalin jimcaada la dilay wax bii la siiyay oo biriga la siiyo laga qaatana ma jiraan adaalada dilin waa maalin jimcaada ee masaajida lagu dilay aana la iska wahay murugada ugu weyn ayaa waxa ay tahay inay xiran tahay caruurtan shanta ah hooyadood kuna jirto saldhig ku yaala magaalada Jowhar waxaan u kurgalay xaaladda dhabta ah ee saldhigaasi u dhex jiifto waxaana ii xaqiijiyay sababaha ay u xiran tahay ehelada hooyadii dhashay caruurtan waxayna ii sheegeen in haweenay kale ay sababsatay nolosheedii balse laga dhiibay diyadii isla markaasina aan wali la siin xuriyadeedii gabadha ilmaha caruurta gabadhan dhashay oo aabahoodna uu geeriyooday ee la dilay gabadhii way xiran tahay ha xiraatay waxay ku xiran tahay amuur baa qabatay naa kala gacanteeda naa kala ku sababaysatay marka ay sababaysatayna annaga xeeraan naqaan ee tolka uu ku dhaqmo waxaana la yiraahdaa shiidlo waxaan ka nahay walamooy waa la isu yimid 3 waaqle niman ah oo walamooyda dhaxdooda ah ay qofta dhimata ka dhalatay wax allaala wixii nagu la lahayo xeerana waa nagala qaatay wixii oo dhan waa nagala magaawsada haatana gabarta lama soo diyoohayo waxayna ku dhacday nin naagtaas la dhashay tolki gaar ka noqday saas aawadeedii gabadha caruurtaan lahayd ay u xiran tahay muddo waxay xiran tahay 4 bilood iyo 10 casho ah marka ay saas ay dhacday amuurtaas dhacday dibadeedna tolka ayaa isu yimid
annagoo ah gabartii wax dishi ilma adeerteedii ciddii markaas gabadhii laga dili ayaan mataqaanaa xil iyo karfan iyo sumaan u geynay isla waqti xaadarkaas ee gabadhii ay dhimatay muddo ka soo wareegatay 4 bilood ayaana laga joogaa wax alla wix markaas dhaqan kii tolka u xeereysnayna way iska bixinin amuurtaas alla ay sugay agoonteeri waa kuwan si aad arkaysiin aad ay u leeyahay yihiin wax naas koray hayeen waxna kamaroona taas awed islaamka wixii uu ka geysan karo gacan gargaar ana inuu ka jeesto ayaan codsanaynaa xaalka caruurtan yaryar ee aan ka soo sheekeeyay noloshooda ayaa ah allow sahal waana mid muruga xambaarsan oo qof kasta oo muslina uusan ka seexan karin cabdishakuur cabdullaahi axmed cabdishakuur shaashaa Somali News TV jawhar.